iyadoo maanta ay ku beegnayd markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Abriil 1960 ayaa waxaa munaasabad lagu weyneynayo sanad guuradii 58 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo ka warbixiyay waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo heerarka ay soo mareen. waxaa sharaf weyn oo ah inaad naga soo qayb gashaan munaasabadan maanta oo aanu dabaaldegayno konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ومالين تاريخي وين وقفة كذا ذلك الصومالي دبلو إسرائيل إذا كحوك الصومالي ومركز صومالي يركب الإنسان إلى ما الله بحديث ما أنت وحنا كلنا إلى الهرم إلى أنت يحسنت أمر يركب haddana waxaan ku howlanahay iyadoo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dib u soo celinta ama dib u soo nooleynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinac kasta. isna waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kaasi oo hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idinku hambalyeeynaa munaasabadan konton iyo sideed guurada ee asaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. mudane madaxweyne sida dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin waqtigaaga 70% waxaad siisay ciidamada qalabka sida dibudhiskooda guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. arrinkaasi waxay farxad gelisay shacabka Soomaaliyeed, waxay idindiila gelisay shacabka Soomaaliyeed, waxay argagixisay ama argagixisay cadawga Soomaaliyeed. argagixisada sida xandarada u haysa shacabka Soomaaliyeed argagax ayay gelisay. runtii khudbadeeda waxaa ku filan nabadayo heesteed. waxaan leeyahay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed dhammaantiina waa in lagu daydaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo waqtigiisa geliyay 70% dibudhiska ciidamada qalabka sida. ugu dambeyn xafladda waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid taariikhi ah dhinacyo badanna taabanaysay ayaa madaxweynuhu waxa uu hambalyo iyo sanad guurada awgeed u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. maanta marka 2017 iyo 2018 maxaan baranay marka waxaan baranay isla sidii inaan ku soo celiyo si aan dalka uga horeyno shabaab. waxaan bilaabay saddexdii ugu dambeeyay oo halkan aan joogay in qof walba oo ciidan uu ugu horeeyo taliyaha askariga ugu hooseeyo qof walba inuu leeyahay dal taariikheed uu leeyahay dal file uu ku jiro qofkaas macluumaadkiisa informationkiisa oo dhan ku jiro oo intii hadda uu jiray ciidanka xoogga weliba 10 sano ugu dambeysay laga gaaray. waxa kaliya oo ku guulaysan waxay ahayd inaan samayno biometric oo weliba aan dhamaystirnay aan samayno. haddaan doonayno marka ciidan nadaamsan meel loogu hagaagan meel loo raacan waa inuu ciidankaasi leeyahay taariikh darbayn macluumaadkiisu oo dhan uu ku egyahay. haddii kale qofkaasi qof jira maaha. waxaa inta ku darayaa ciidankeena Soomaaliya sharqaan iyo AMISOM sidii ugu shaqeyn jireen iyo si ka fiican loo shaqeeyo oo aan gacan siino oo isku aad amniga ka galno oo aan imano oo aan wadano. waxa weeye ciidankeena waxa laga rabaa taasi inay xoog ka saaraan sidii ugu shaqeyn lahaayeen ciidanka AMISOM. guuradii kontonistada ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay hambalyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskooda
waxaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk Soomaaliya maanta lagu soo gabagabeeyay munaasabad lagu weyneynayo 58 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Shilaawe, telefishinka caalamiga SBS magaalada Muqdisho.